Soomaali badan oo magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii degan kuna ganacsata waxay si aad ah ugu dadaalayaan inay arkaan muuqaalka xaafadda Islii oo la mid noqda xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Islii waxay hormood u tahay kaalinta horena ugu jirta xaafadaha ugu nadaafadda iyo wasaqda badan guud ahaan Kenya inkastoo ay jiraan goobo kale oo isku raran ah oo iyana nadaafad xumo baahsan ay ka jirto laakiin Islii goobahaasi waxay kaga duwan tahay waa meel ganacsiga uu ku xoog badan yahay dawladuna ay u dhaqaale badan ka soo galo sanad waliba. Ku dhawaad 9 bilood ayaa laga joogaa xilligii dadka deegaanka Kamakunji ay Yuusuf Xasan u doorteen xildhibaanka matalaya degmada iyadoona wixii xilligaasi ka dambeeyay uu xildhibaan Yuusuf Xasan u ballan qaaday dadka deegaanka Islii iyo waliba guud ahaan degmada inuu wax badan ka qaban doono wadooyinka sida weyn u burburay iyo nadaafad xumada ka jirta deegaanka ay Soomaalidu sida weyn ugu badan tahay ee Islii. xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa socod ku soo maray wadooyin dhowr ah oo xilligan ay dayactiro ka socdaan iyo wadooyin kale oo la qorsheynayo in wax laga qabto dhawaantan sida uu xildhibaanka dadka deegaanka u xaqiijiyay. wadada uu dhismaha ugu badan ka socdo waa wadada labaad oo marin muhiim u ah guud ahaan xaafadda Islii marka laga yimaado wadada koowaad oo ku fadhisa goobaha ganacsiga ugu muhiimsan ee xaafadda. xildhibaan Yuusuf ayaa sheegay inuu xaafadda Islii u soo booqday inuu eego meelaha ay marayaan dib u hagaajinta qaar ka mid ah wadooyinka oo bilihii ugu dambeeyay dayactirkooda lagu mashquulsanaa. mudane Yuusuf ayaa ugu baaqay dadka deegaanka Islii inay ka qayb qaataan dib u hagaajinta xaafadda si ay ula mid noqoto Islii xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. waa inay soo baxaan oo wax qabsadaan wada jirna ay wax ku qabsadaan. waxaan rajaynayaa inay ogsoon yihiin in xaafadaha kale dadka u dhashay ee degan ay wax ka qabtaan. xildhibaanka ayaa gaashaanka u daruuray dhibaato dadka deegaanku ay sheegeen inay u geystaan ciidamada ammaanka xilliyada ay dalka Kenya ka jirto xiisad dhanka ammaanka ah. waxban kama jiraan taasi berigii horeeto askartu guryaha dadka geeli jireen maadaama xaaladda nabadgelyada wadanka ay meesha ay marayso askartu waa inay hawshooda qabsadaan oo ay ilaaliyaan nabadgelyada xaafadda laakiin se kuma xadgudbi karaan shicibka ku nool. inta anigu aan xildhibaanka noqday raaf ama se shaqad biliiska ay guryaha dadka ku galeen ma jirto mana ogolaanayo. nin aan dambi geysan oo waxban samaynina lama qabsan karo. taasi anigu ballan baan u qaaday shicibka xaafadda. iminkaba haddaan suuqa soconno wax isdhibay wax dhibaato idin keenaya ma jiraan si xorriyada ayaad u socotaa soo maaha. Soomaalida degan Islii kuna ganacsata ayaa lagu dhaliilaa inaysan isku xilqaamin wax ka qabadka xaafadda marka ay timaado waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadamaha sida ammaanka iyo waliba nadaafadda. inkastoo dadweynaha xaafadda ay dhankooda arrimahan oo dhan ay dusha kaga tuurayaan dawladda. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal TV, Nairobi.